inkasta oo la filayo inay doorashada federaalka ee dalka Canada ay bilaabmi doonto horaanta ama bartamaha sanadka dambe ee 2025 haddana waxaa si xawli ah u socdo diyaar garowga doorashadaasi xaafadda Edmonton Center oo kamid ah xaafadaha ay Soomaalidu ku badan tahay ayaa waxaa sanadkan ka taagan oo tartanka ku jira سيد أحمد أويل صوماليا مقعي وسيد أحمد وكتر تمايو حافظ إدمنتون سنتر نومينيشن ستيج كي أيان مريا وإسرائيل راب كي لو يقاني أما برايمريز كا marka anigu iyo waxa uu wada tartamayo hal qof oo kale to marka labadeena ayaa tartankaas u dhaxeeya xaafadda Edmonton Center waxaan coday kara dadkii memberska noqday kaliya سيد أحمد oo in muddo ah ka soo shaqeynayay sidii uu ugu guuleysan lahaa musharaxnimada xisbiga Conservative-ka ee dalka Canada ayaa waxa uu inoo sharaxayaa sida ay hawshu u socoto waxaan u tartamayaa xaafadda New Edmonton Center waa kursi muhiim ah ahamiyad weyn u leh magaalada Edmonton group kastana u leh qaas ahaan community-ga East African-ka u leh Soomaalida u leh aan ka nahay stakeholder weyn aan ka nahay kursigaas marka in aan representation ay dadka yeeshaan oo qof maanta umuurahoodii danahoodii ka hadli karo matali kara dhinacii ganacsiga matali kara dadkii familieska matali kara duruufaha iyo challenges ka jiro marka arrinkaas ayaan u tartamayaa tartanku laba phase ayuu soo maray phase-kii koowaad wuxuu ahaa dad qoritaanka meesha maadaama nomination-ku waxa coday karo qofkii isdiiwaangeliyey oo membership-ki jartay $15 dad badan ayaa bixiyey xaalad culus iyadoo lagu jiro marka hadda qaybta way soo xirantay August 16 bay xirantay hadda la taaga soo socoto oo bisha October 6 ee tahayna codkii ayaa dhacayo waxaan rajaynaynaa rajo fiican ayaan qabnaa marka waxaan ka codsanayaa jaaliyadda ummadda Soomaaliyeed dhammaantood in maalintaas hadda qofkii member noqday inuu soo baxo si uu codkiisa u dhiibto oo meesha marka hadii aan dadkeena badankiisa ay soo baxaan oo aan soo wada baxno wixii magaalada joogo codkaas waan helaynaa waana guuleysanaynaa guusha marka waxay naga xigo codkaas aan soo saaran haddaba waxaa la isweydiin karaa sidee ayay codayntu u dhacaysaa maxaase looga baahan yahay dadka isdiiwaan geliyay ee xubinimada xisbiga qaatay qofka horto ama PR ha ahaado ama Canadian citizen ha ahaado already qofkii xaafadda dhexdeganaa membership ka ayuu jarto horto maalinta liiskii codaynayay waad ku jirtaa number 1 marka si aad isku cadayso waxa kaliya la xaqiijinayaa wax waay qofka sheegaysa ma tahay marka waxa u baahan tahay driver license oo magacaaga ayaa laga fiirinayaa marka meesha timaadi addresski ama qofkaana driver license haysan wuxuu la imaan karaa Alberta ID qofkaana Alberta ID haysan wuxuu la imaan karaa kaarkii caafimaadka ama student ID ama wuxuu kaloo la imaan karaa warqad cadeynayso in uu maaragtay dawladda ka timid ama federal government-iga ama city-ga ama province-iga oo addresskaas uu deganaa ku qoran marka inta kaliya ayaa loo baahan yahay already member hadii aad tahay cod baa leedahay oo liiska codeynta waa ku jirtaa ID inaad la timaado ayaa u baahan tahay driver license qofka haysta intaas kaliya ayaa ku filan Alberta ID qofka haysta intaas kaliya ayaa ku filan qofkii aan labada midkood haysanina wuxuu la imaan karaa kaarka caafimaadka qofka soo haysta iyo warqad cadeynayso inuu degan yahay guriga ama bank statement ha noqoto ama mid dawladda ka imaata ha noqoto intaas kaliya u baahan yahay darawal qofkii u baahan anaga siinayno wuxuu la soo xiriiri karaa xafiiskeena xafiiska uu ku yaala Zuhur restaurant-gaas u jeedaan oo Capital Halal u dhow dabaqa sare qolka 205 waxa kale oo meesha ku jira kaalin caynkii ayaa u banaan Soomaalida kale ee aan xubinta ahayn ama aan xaafadan badeganayn isla markaasna diyaar waa inay gacan siiyaan Sayid Axmed aan ka codsanaynaa bulshada jaaliyadda dhammaanteed maalinta waxaan rabnaa tusaale weyn inaan dirno message culus inaan dirno haddii aadan member ahayn haddii aad xaafadda aadan deganayn there are many ways aan ugu caawin karto waa 4 saacadood kaliya ayuu cod ka dhacayaa 2 o'clock ayuu furmayaa 6 PM uu xirmayaa maalinta axadda waxa u baahanahay darawalo fara badan waxa u baahanahay volunteers fara badan waxa u baahanahay dadka guryaha inta gala ka soo saar waxa u baahanahay gabdho caruurta ilmaha u haayo maadaama hooyooyin members ay jiraan caruurta loo hayo u baahan yihiin marka waxaan idinka codsanaynaa
nala volunteer gareeya maalinta sabtida ka horeyso oo hawshii aad qaba lahayd lagu sheegayo iyo maalinta axadda kaliya ayaan u baahanahay inaad nala volunteer gareysaan albaabka xafiiska wuxuu furmayaa maalinta axadda subaxii 8 am noo kaalay ama 10 latest marka howl baan ku gelinaynaa codka waxaan rabnaa dadkeena inaan sii wada geyno by 1 o'clock hotelku ka dhacayana waa hotelka la wada yaqaano wadadan 107 ka qofkii saaran 109 buu qaadanayaa Kingsway wadada la dhaho oo airportkii hore aad ayuu bidixda u galayaa markuu socdo hotel wuxuu arki doonaa Edmonton Inn kan ku xigo oo la dhaho Chateau Nova ayuu wuxuu ka soo horjeedaa Canadian Tires ayuu ka soo horjeedaa marka waa hotelkaas ayuu ka dhici doonaa qofkii ride-kiisa haysto halka iska soo xaadariyo ID-giisa soo qaato qofkii volunteer noo sameey karo waxa u baahanahay dad badan oo darawalla ah marka please nala soo xiriir numberka la soo xiriiri karto waa 780-200-0286 ama maqaayadda Zuhur dabaqeeda kore meesha timajaraha albaabka ku dhigan ayaa laga galaa flyerkii ayaa ku dhigan waad arkaysaa dabaqa sare soo fuul 205 noogu kaalay marka waa aad iyo aad baa u mahadsantihiin reer Minnesota kama liidano hawshan waxay soo socotay 10 bilood marka ka qayb qaado bushkii u dambeeyay nagu caawi aan qayb ka noqono reer Minnesota aan tusno inaa reer Edmonton meel ka soo bixi karto ugu dambeyntii waxaa la filayaa in Sayid Axmed uu ku guuleysan doono codayntan oo la filayo inuu noqdo musharaxa tooska ah ee xisbiga conservative-ka ee Canada ee Edmonton Center sanadka soo socda